السلام عليكم أصحابتي غالية وايد من السلام مالك تأدون كجوكتا وحرجينا إن عفمات قبطان أنا نسوي كل عفمات قبل الحمد لله ساكسو حينا إيو حاول روتين كينا سو دواد أصحاب سعسو حين الله قاعد فرنكو سو دواد منك ومنكين اسمرتيننا هدي أظهر نور جوكتا وان كاغم هاد علينا هدي أدنو عصبتان وحن كلها سبسكرايب إنو صار إن شاء الله نقو صوبير الجوك استاذ قروح البضن إياه يكومنتيgiina quruxda badan waa inoo faa'iiday insha Allah waan mahadsantiin dhamaantiin soo dhawaada saaksu waxaan halkaan ayaa soo ka kacnay hadartan waxa waaye 9 iyo barka subaxnimo markaa 3 saac subaxnimo ayay ahayd soo wiilka yaraa uu uga soo horkacay aabiis oo shaqo ka imaada ayaa quraac siisiyay soo aniga gabadheeda ayaa had soo toosnay fadhiga xali waxa u maleysaa in uu kortunto ma fahanteen soo dariishadaha ayaan furfuraya hadartan si arkaysan si inuu soo gasho iftiinka banaanka xogaa yaro waa mugdi laakiin waa xilli hore soo aniga gabadheertu waan soo baxnay jikada ayaa imaaday aniga waan soo naay marka waxaan hadda sameynaa insha Allah gabadheerta ayaan waxaan siisanaa quraac waxaan u soo qastay waa mishaari kadibna meesha ayada aniga waxaan isku dagaaloonayaa gacmaha la galay taagida waxay u maleysaa liinti iyo mooski waxa gacmaha ka saaraa soo wixii taagantahay gacanta la galaabo soorta anigana waxa taagan hooyo gacmaha kaaga halaaba mideeda kale tan waxa xogaa yara qandac ahayd inay gubita ayaan diidayay soo marka meeshaan ayaa waxay taagantahay may hadii kale madaxa luxluxay waxay taagantahay may aniga idib qandada marka cunuga barto inuu kaligiis wax cuno ama aad rabto inuu ku barto waa sidaas faateen cunugan wuxuu ku xirantaa asaga inuu ka soo go'do horta inuu baroobeeyo ama waxaan asaga inuu qabsado soo si ila dagaalaysa marka dab waxa ku qanciyay inay qabsato qaandada hadda si arkaysan waxa waa qaandada qabso hooyan taagan aad afka gasho meeshan dagaal dheer markuu ka dhacay quraacda iga diid xoogaa yar waxa u soo qabtay labada xabo caag oo ay ku dheesho soo iga ogolaato quraacda inay cunto soo in ma jiraan subaxii hore aanan cuntada ku fiicnay inay cunaan gabadheedu waxa waa quraac subax hore ku dhib qabtaa ma jecla inta badan laakiin aniga kuma qasbisayd kuma qasbo 5 qaando ama 2 qaando hadii afka gashato waan kala xidhaa meeshan fadhiga ayaa imaanay caruurta meeshan iska babaashaalaysa fadhiga wax walba ayaa tuuran xali waan daalanay dhar ayaan dhaqay kadibna waxa waaye meeshan alaabta alaabida horta waxa malaysa wasakh fadhiga wasakh ma horta aan war idin siiyo galabka ayaan hufariyay laakiin waxa waa alaabada ciyaarta ku dheelayaan hadii bakeeri shaah lagu cabayo kala fadhiga la imaaday waxyaabahaas bisa ka gudbina mooyaane hufar iyo waxa xaqin iyo uma baahna insha Allah soo sida arkaysa meeshan tirishada waxa waa istaaga hooyo ay celinay taaganta hadda waxay taa socod barad gabdho waxay idin leeyahay kufida madaxaas ugu xiran waxay ka celinaysaa caruurta inay dhacdhacaan maanta ilmaha marka istaaga barnayaan dhacayaan joogta badan ay xoogaa waxay u tahay difaac soo waxa waaye maanta maasha Allah tabaarakallah ilaahay ilmaha noo xifdiyo meesha meel alaal meesha aada liga daba aada ana ogeyn istaagaysa hooyo waxaan taagana waa dhacaysa maalintii waxa u maleysaa in loo qoray 3 mar 4 mar 5 mar ay dhacaysa inta istaagsan tahay waxa waaye ilaaha u fududeeyo waxay rabtaa inay socoto insha Allah soo duceeyo ilaahay socodkana la garab galo meeshan waxa taagan hooyo soconaysa kale daada wajacasha daada marka dhahayo soo hadan waa soo fariisiyay waatana 2 barkin la toosiyay big waa taagan tahay marka waxaan ka baqayay wiilka yar meesha jiifa asagana oo xogaa yar mashquulsan yahay marka lugta imeelas haday ka taabato jug inuu siiyo ee gadaal u dhacdo soo waxaan leeyahay fadhiiso kaligeed inay fadhiisato istaagto ayaan isku dayaa soo meeshan waxay imaadadane loodadii ama sanduuq yaray ee alaabada aan ku gurbiyo maalintaas oo dhan wixii ay ku ciyaarayeen ugu dambeyn meeshan u soo lug fidsaday korka ay soo kortay xiraad hooyo in ildhidi sharta afka gacanta igilgiliso afwan waxa waa ilmaha wajigooda muuqaalka waxa ugu qariyay waxay tahay waa saqiir social media inta badan ilmaha yar yar uma fiicno mideeda kale tan waxa waaye ilmaha ayaga inay doortaan markii ay roonaadaan ay koraan ilmaha 6 jir 7 jir markay gaaraan markaas ayaga go'aanka iskale hadii ay ku jiraan muuqaalka iyo hadii kale taba laakiin inta ka horeyso mas'uuliyadooda aniga ay saaran tahay waayo wax ayaga go'aankooda ma hadartaan soo lama jecli inaan wajiyadooda iyo waxa ku soo bandhigo insha Allah iga raali noqdo walaalay qaali aan jeclahay xumaan ha u fahmin ma fahanteen
ilmaha waa ilmihiine waa ilmaha dhasheen camal kasoo qaatay insha allah. marka halkaas ayaan uga baxay. kadibna meeshaan waxaa waaye waxaan rabaa qado yar oo kaal iska aragina bubsiyo baasto iyo suugo. jikada ayaan soo galay alaabta ayaan waxaan ku goray mashiinka. kadibna waxyarkii alaabta taale ayaan gacanta ku raacsiiyey. meeshaan ayaan waxaan rabaa in horta iska dhaqo kow intaanan cunto kariska gelin waayo hadhow marka cunto kariska galo waxaan rabaa inaan fadhiisto salweyn aa la dhahaa. marabi waayo hooyo ilmo yar haysata markaa tahay ilmihii ay kaa daba qeylinayaan cunug xafaayad ah ka bedelayso cunug kaleetana caanaha u qasayso marba si ay tahay ilmihii marmarka qaarkood intaad seexsato isla marka kugu soo kacayaan. ani cuntada iskuma badaahiyaba cuntadeedu waxaa waaye labi eber aan u diraa inta badan umaba taagnaadaba 15 daqiiqo inta isku daraayo saas ayay ugu qaadataa. waxaa waaye haddii aad barato markaa tahay hooyo caruur yar haysato waxaa fiican inaad jadwal leedahay xilliga cuntada karinayso inaysan waqti badan kugu qaadan cuntada. meeshaan waxaan soo qaatay hilib kadibna waxaan barafka ayaa kasoo riday hilibkii jab basal ayaan kusoo jarjaray. kadibna waxaan ku hoolaya hadda 2 xabo toon halkan waxaan soo saartay waa digsi waxaan ku darsaday olive afwan. hadda waxaan bilaabay inaan ku karsado cuntada olive-ta waa saliida cadeeda ma fiicno iska dhaafay familka dhan ahaanba. caagadaas olive-ta waxay nagu filan tahay anaga famil hadda saas ugu imanhin laakiin naga badan bishii. meeshaan waxaa hilibkii ayaan hadda isku soo shiilay saliida iyo wixii dhan hilibka ayaan rab isku soo siiyay daboolka ayaan u dheereeyay. kadibna markaas hadii hilibkeenu noo soo buurisay arkaysan waxaan ku daray wax yar oo cusbe inta badan waxaan jeclahay hilibka markii aan karinayo inta ugu horeyso si shiilmin inaan cusbada ku daro. kadibna waxaan ku soo darsaday xawaash dhuudhuub ilaa amarkiisa baasto dheer markaan karinayo suugadeeda waxaan jeclahay xawaash inaan ku daro. meeshaan big ayaan biyaha baastada ayaa isoo korkaray kadibna waxaan doontay baastada ayaan doontay cusbo ayaan kusoo daray biyaha. kadibna waxaan ku darsan doonaa insha allah baastada dheerta ayaan ku shuba doonaa. suugada intay noo saaran tahay ayaan baastada iyadana siisa karsanaya. intaas ba hooshada yani hooshada haddii aad og tahay sidii kuugu fududahay marka aad tahay hooyo caruur yar haysato meesha aad ka marayso hooshada walaahi nolosha easy waa sida aad ka dhigata ay ku xiran tahay. meeshaan waxaan sameynaa hadda baastada ayaan si fiican isku soo dhex gelinaa insha allah. horta asxaabta cusub ay ugu soo birto waxaan idin leeyahay soo dhawaada yaa gabadhiina waay barasho wanaagsan waxa waa janalkiina waay kor ha loo qaado insha allah. muuqaalka hadduu idin soo gaaro ii share gareeya like-tan hanaga iloon waa inoo muhiim. haddii aad jeclaystaan rutiinada sidaan camal waa idin soo badali doonaa insha allah ila soo socodsiiya commentiga waa xagiina insha allah. suugadeena ayaa hadartaan way noo soo shiilmatay hilibkii waxaan kusoo daray wax yar yaanyo ayaan kusoo darsaday hal baakad kadibna waxaan isticmaali doonaa wax yar oo soo raacsi doonaa yaanyada baakadeedii. sida arkaysaan biyo kale kuma dari doono insha allah. kartoonka yaanyada ayaa biyo yar kusoo raacsiiyey. hilibkii iyo yaanyadii markay isoo dhex gashay ayaan isla arki doonaa. kadib meesha waxaan kusoo darsaday qaando yaanyo shiishiid yaanyo shiishiida kale waxay ka caawinaysaa yaanyo shiishiid la-aan waa karsan kartaa laakiin yaanyo shiishiid waxay ka caawinaysaa suugadaada inay noqoto suugo xoogaa yara adag oo dhadhan leh. kadibna waa tanahay baastadeeni kaal iska arag maasokoota ee noogu soo baxday. baastada waxaa waaye ilaa iyo 6 daqiiqo camal ahayd ilaa 4 daqiiqo ayaan ugu dejiyay waayo baastada intay huurayso ay ku bislaanaysaa. daboolka ayaan haaf ka fiiday si ay noogu leersato jikadeeni kaal iska arag saas ay nadiif noogu tahay. waa kaas maasha allah tabaarakallah. meesha kabsar caleen basal iyo barbarooni ayaan kusoo jarjartay. halkaasna waxaan kusoo diyaarsaday waa baradho aan si dhuudhuub usoo jarjartay oo aan rabo suugada inaan ku daro. kaal iska arag waxaa waaye waxaaga dhan dhag ka dhigo ilmahaagan waqti la qaado cuntadaadana karsa waaye. suugadeeni sidaas ayaa noogu soo shiilmatay kaal iska arag ayay kusoo baxday maasha allah tabaarakallah. suugada aniga waxyaabo badan kuma dardaro wax yar oo xawaash maraq digaag iyo cusbadaas bis kaal iska arag kusoo bixaysaa. dabka ayaan u gaabsan doonaa insha allah number 3 ama number 4 ka dhigo. meel ayaan ka fariisan doonaa ilaa iyo waqtiga ciyaarkayga aan la soo qaato kadib oo soo noqday. suugadeen maasha allah wax saliidu hadda way soo yara tuftay way shiilmatay. kadibna waxaan ku dari doonaa insha allah baradhada ayaan beerka u geli doonaa. allah mustacaan allah ma tusifuun. waxaa waaye ha wareerina lahaa afaarahan haddii aadan waqti haynin cunto aad shuutay karin
caloosha wax la geliyaa la rabaa fahanteen waxoogaa yara dhadhan leh soo intaad awoodo markaas aad ka gaarto ayaa la sameeyaa liskuma dhigo nolosha fudeed nolosha gacantaada ayay ku jirtaa haddii aad sidaa ka dhigato ayay kuu noqonaysaa insha allah soo baradhadii ayaan hadda kusoo shiilmatay maasha allah tabaarakallah suugadiini kaaliska arag biyo dhan ma taabsiinin oo biyihii hore aanan ka ahayn bilowga hore aan kusoo daray suugadiini kaaliska arag waxay noqotay baradhada hadda way inoo basashahay baradhadan waxaa waaye caruurta ayaan uga bixi doonaa insha allah kabsar caleenta ana waxaan jeclaa inaan sidaas usoo jarjaro oo yacni si yaryar mindida leh aan ku jarjaro ma jecli inaan tutumo badana soo kabsarteeni toonteeni iyo basashaana ayaa dusha kaga darnay caraf kaaliska arag waxaa waaye lagama sheekeyn karo suuga ay naba caadi ahayn ayay kusoo baxday muuqaalku waa gabagabo haddii ay intaan la soo gaarto waxaan kaa codsanayaa channelka inaad subscribe inoo saarto waana mahadsantihiin